faa'iidadu waxay tahay inay caruurta arkaan dhaqankooda luuqadooda ku faanaan arkaan dadka waaweyn inay rabaan inay luuqada bartaan fish and chips ma soconayso marka waxa luuqada hala barto waa ku dadaaloonaa waa ku dadaal dib baa loo noqonaya waxaanu ka shaqeynaa mental health waxaanu sameynaa housing waxaanu sameynaa youth programs waxaanu sameynaa hidiya dhaqanka waxaanu sameynaa sports activities iyo health promotion أنا dhalinyar ah oo wadankan UK ku dhashay oo ku koray alxamdulillah mar walba dhaqan keena xildhibaan waxa jira dad badan oo xaafadan ku nool oo iyaguna bilaa guryo ah kuwaas waxa ugu weyn xaafada haysta ma sha Allah si fiican bay u dhacday barnaamij fiican bay degaan every year and they support community-ga Soomaalida Haringey runtii waa soo aad iyo aad qiimo badan waxa jooga hablihi The event was marvelous. It was just marvelous. It was so much fun. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh asxaabta qiimaha iyo qaayaha la taafaha dunida ku kala nool waxaanu joognaa Rise Project event ka ay ku qabanaysan North London sanad walba la qabanayay halkan waxa ila jooga director-ka Rise Project Awaale ila jooga oo ah runtii shaqo wanaagsan oo haya community-ga North London iyo guud ahaan London Awaale soo dhawow mashquul baa tahay haddana adoo noo soo gaabinaya ka waran event-kan aad u qabateen iyo dadka maanta ka soo qayb galay walaal Bashiir horta aad baan ugu faraxsanahay maanta noo timid North London mana aha markii koowaad ee timid horeynu wada shaqeynay waxaad noo timid 2022 2023 2024 runtii farxad weyn bay noo tahay inaad maanta aad joogtid maanta waxaan joognaa Somali Culture Night oo sanadkii saddexaad socota waxaanu ku beegnaa Somali Culture Night wiiga ugu dambeeya half term ku jiro ujeedkuna waxa weeyaan runtii in dhalinyarta Soomaalida dhaqankooda lagu barbaariyo la siiyo chance iyo fursad ay ka faa'iideysan karaan dhaqamada Soomaalida kala duwan taas anaga noo muhiimsan runtii waxaan maanta nala jooga dad badan oo fanaaniin caana waa family friendly event waa community event waxa weeyaan event runtii support weyn kale Haringey Council iyo maxaan ku raraa local authorities-ka waxa noo yimid intaas soo xildhibaan mayorkiiba barnaamijka furtay saad wada arkayseen runtii anaga farxad weyn bay noo tahay inaanu u soo bandhigno Soomaalida kalena xaafad kasta inay waxa ka sameeyso aad iyo aad awaalo mashquul baa tahay Rise Project marka laga yimaado hidayada dhaqanka sanad walba qabataan maxaad community ugu qabataan xaafada Haringey walaal Bashiir Rise Project waxa la aasaasay 2016 waxaana loo aasaasay Somali community-ga waqooyiga degan North London waxaanu sameynaa waxyaabo kala duwan waxaanu sameynaa food bank waxaanu ka shaqeynaa mental health waxaanu sameynaa housing waxaanu sameynaa youth programs waxaanu sameynaa hidiyada dhaqanka waxaanu sameynaa sports activities iyo health promotion iyo waxyaabo badan oo kala duwan dad badan baan la shaqeynaa imika barnaamijka wuxuu gaaray ilaa 5 boroughs baanu ka shaqeynaa waa Haringey waa Enfield waa Islington waa Barnet waa Camden iyo London wide ba marka xafiisyadiinu waxay ku yaalaan area-da aad noo sheegtay marka Monday to Friday waanu furanahay xafiiskaygu wuxuu ku yaalaa Tottenham High Road wuxuu ka soo horjeedaa Job Center-ka dadku inoo iman karaan barlamaanu sameynaa khamiista oo kale waxaanu sameynaa coffee morning oo loogu talagalay housing surgery dadka arrimaha guryaha ku saabsan dhibaatada ay ka haysato dad badan baanu runtii guryo badan ka caawinay waxaanu sameynaa dhalinyarta barnaamij baanu sameynaa waxaad naga helaysaa social media meel kasta waan soo qori doonaa link waxa weeyaan Instagram rise.projects Twitter Rise Project TikTok waanu ku jirnaa Facebook waanu ku jirnaa LinkedIn waanu ku jirnaa website baanu leenahay xafiiska YouTube Rise Project YouTube waan soo share gareyn doonaa community-gana soo dhigi doonaa mashquul baa tahay xafiiskiina waad ku soo booqan doonaa aad baad walaal mahadsantahay shaqo wanaagsan community-gooda haysta aad baad mahadsantahay runtii
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب قيمها قاياها لا يدافع دنيا كولونول أو وحنا جونا رايس بروجكت يعني لا تشوجا لتسمدي وينيد أي عاون لا تشوجتا أنا السوق قبلني يذوب مشغولة دتك كوسا حومين أي هذا وحق لي نجاق بس ورئيسك أدور ما حصلت هاي سودو شرفي هاي إن هالكلام ما أنت جلسوا موقته إن كورن حفلة عاوة bashbash iyo reereen ay ku dhamaatay farxad badan baan ka helay dad badan aan arkay oo Soomaali ah hooyooyin caruur marka farxada ii tahay inaan ka soo qayb galo oo dadkayga maaragtay garab siiyo oo maaragtay aniga xataa aas xayeysiyo oo dhow daawada marka waan ku faraxsanahay maashadeeda well done great job I feel happy ma sha Allah hidayada dhaqanka Soomaalida ayaa halkan lagu soo bandhigay caruur badan baa ka soo qayb gashay maxay kula tahay faa'iidada ay ka Soomaalidu ka faa'iidi kartaa xafladahan oo kale faa'iidadu waxay tahay in caruurta arkaan dhaqankooda luqadooda ku faanaan arkaan dadka waaweyn inay rabaan inay luqada bartaan fish and chips ma soconayso marka waxa luqada hala barto waa ku dadaaloonaa waa ku dadaal dib baa loo noqonaya marka waa ku faraxsanahay dhalintii inay aragto luqadoodii iyo dhaqankoodii iyo muusigoodii fankoodii marka alxamdulillah farxadii reereen noo tahay mashquul baa tahay walaalku fasaxayna laakiin إن شاء الله thank you أنا وجسليدا يا قبطة عطا باي إن هالك وحيلة شوجا عن بعود يهب له هذي هيبو منهاج يا ولا منهاج إن عن بعود سورو إن ودوها ولالك وكم هذا علينا يا إن كور المرتها إن حفلة هدية دقنكا هالكن كان عادي إن ميتين كان عادي هذا وقروح بدنيا هاي ما شاء الله تبارك الله وحن وقم هذا علينا إلهي سبحانه وتعالى ونسو كان الصومالي نقد جا مركه هرم هذا علينايا مركه لبض وحن هذا علينايا روق عداياشة أو سوق بنقابي ميتين كان قروح ذا بدن وكلا عوالة رايس بروجكت وكلا عوالة إيو ننكل إلى هذا أحمد أدبان وقم هذا علينايا يأضو صور قاضانا وقم هذا علينايا والله أدبان ما حسيت والله إن واحد إذا ما تم حد صوب بندقيسي أنا جو حن صوب بندقينا هداية دخن كالصوماليات وبدنيها هداية دخن كالصوماليات قيب كمية هنصوب بندقينا أول لوجو مقعد برامبر وماركتي جبايجي صعبكي دربانكي عيارتي وصل الصعد ما تدخل مش تشوفوا تروح ذنب ما شاء الله وحقول لي وإكسسايز بالكالندر أدي أنا قبلنا عن نقد داوني سوما ما شاء الله وين ومحي مسجك أدو درسوا دليرة الصوماليات كونول دلك UK إن كارهان كو ودكان كل شيء إن حد يجي دقنك وحنده لها عروت هالكان كل إنت أنا عروت وحدين وارد كان وحده لها إني المه هذا دقن كبران إني ما أركت عيارها بران إني ما أركت وحول بدين تبران درك عن لنا هاي بران عيارها عن لنا هاي بران موسيقى وجمع أرمان. هذه very good message ويان إن حبلها نو ولا لا طبعا. إن حبلها ومرنا صاحبنا مرنا ولا لنا. ما شاء الله. سلو ولا. السلام عليكم وعلوه. إن ما تكور حفلته؟ حفلته ما شاء الله تبارك الله وباشرني وحوابرني وكساس وين. أي absolutely thank you. السلام عليكم مقعي هو منهاج هرتا كو waxaan mahadcelinaa رايس بروجكت oo nawacadeen oo nacsuumeen xafladan quruxda badan teeda kale su'aasha aad ana weydiinaysa baa rabaa inaan ka yar jawaabo anoo dhalinyar ah oo wadankan UK ku dhashto oo ku koray alxamdulillah mar walba dhaqankeena iyo wadankeena inaan mar walba u hormarno aan jeclaano mar walba anakoo Soomaali ah waa priority-geena si kastaba dhaqankeena diinteena iyo luqadeena inaan jeclaano waa mar walba dunkan British kaliya kamanihin laakiin Soomaalina waynu nahay dalkii waa loo noqonayaa taasna waa qodob aad bad maasantay walaal ما تنتهي ولا هل ميدان راسين لها إن منهاج وحي برتها بلها يرير عيارها الصومالية برامبرك السيلعي جانديرك ما شاء الله وأوجم هذا علينا أيضا كوميونتي جنا هذا وجبها هي صوت وهذا صوت ولا المقعد حنان عبد القادر حناني أدو ما صرت نقرأ سوق بكشي عوا كورن حفلة رايس بروجكت أي كدكتي نورث لندن والله إنما عادي معها حفلة أو إنما ولي أركين واي ضد بدنا ماشان قوة كل من ما شاء الله وصومالي ذا هدية دقن كإلمها ما أنت برنا يعني هدية دقن كإي وحول بقادة أو فرح سنة هاي أنا نفتي وحيال بدنا برتاي وحبا إيسو فايدي ضد بدنا ماشان كل ماي وما شاء الله هذا أو فرح سنة أنا ما أنت حفلة دان كسوق يبقى رايس بروجكت نا thank you بقولنا هاي رايس بروجكت نو حليها thank you so much إن opportunity كان إسيسن أمانتي invite جريسن وحنا الله Soomaalida dhan
haloo istaago waa mahadsantiin waalidiinta ka soo qayb galay xafladan caawa magacaaga noo sheeg magacayga waa Lul Hamza ka waran maanta event ka waran it was amazing mashallah what they did Ahmed and Awale we really appreciate wallahi aad baan ugu faraxsanahay anigana one of them I've been with them for 10 years now mashallah with Rice Project they help us for everything absolutely amazing so thank you so much the best community I'm in Haringey I live in Tottenham so Rice Project what mahadsantahay project amazing good aad iyo aad baad mahadsantahay walaal maanta waa markii saddexaad aanu cultural show ga qabanno hidiyaha dhaqanku wuxuu ka mid yahay qaybaha ugu muhiimsan ee lagu ilaaliyo dhaqanka Rice Project 3 sano aanu imika ka shaqeynayna dhalinyarada iyo faamiliyada programmadan soo bandhigaynay aad iyo aad baad u mahadsantihiin inta ka soo qayb gashay waxaanan aad u jeclaan lahaa inaad mar walba saan oo soo qayb gashaan cameramanada iyo teamka social teamka ee taanina waxaan leenahay big thank you asxaabta qiimaha iyo qaayaha leh waxa halkan ila jooga saaxiibkii Sahal iyo sidoo kale nin culus Johnny oo muddo dheer isu kala dambeysay Sahal caawa ka waran xafladda wallahi xafladdu caawa way si fiican baa loo soo gaasmay xafladda wadiga arkaya xafladda Rice Project baa la dhahaa every year waxa la qabtaa October dhamaadkeeda la qabtaa after Black History Month ka la qabtaa marka waxa la isku keenaa Soomaalida in dadka la baro hidiyo dhaqankiisa aan u ilaawin moogtay hidiyo dhaqanka iyo yani mujtamaceena Soomaalida Ingiriis ku nool isku xidhnaano waa gartay Johnny adigu maanta waxaad ka timi all the way from West London aad iyo aad wallahi runtii caaw xafladan aanu yimid lagu soo casimay North London caaw waxaan leeyahay aad iyo aad ay u mahadsanyihiin sida sharafta leh xaflad qurux badanna waad aragtaa oo way ka socotaa caawa Allah isu keen barakeeyo dhammaanteen hooyada Soomaaliyeed waan hagaajiyaa Para agua marcar
waa maxay khadra khadraay ka waran xafladda maanta ka dhacaysa halkan Rice Project North London والله عادي عاد بيوفيعنيد سنة كسب وان سو بوقدا وكسو قيب كلا إن ما شاء الله سي في عم بيود عضي إن برنامج في عم بيدقال every year and they support community Somali ذا حركة ما شاء الله what's a message dhalinyarada carruurta yaryar ee Soomaalida ee xaafadda degan waa maxay fariinta u diraysaa والله just it's good to know that education first you know focus on your education and inshallah you will do well just like that guy يبي event كان مانته counselor Somali iyo dad badan oo madaxa Soomaaliya hadda yimi ha aad bad walaal ma hasantahay Cabdiqaadir baalkan ila jooga Cabdiqaadir walaal soo dhow waan dhawey walaal aad iyo aad bad ma hasantahay Cabdiqaadir wuxuu kamid yahay mas'uuliyiinta North London ragii waxa ku leeyahay xaafadina xoreeyay iminkana ka shaqeeya oo dhalinyarada isu keena community isu keena maalin habeen u taagan sidii ay dhalinyarada Soomaalidu ay dhaqankooda iyo diintooda iyo ay isugu iman lahaayeen Cabdiqaadir walaal hawl wanaagsan baad haysan oo kula soconaa waa maxay message-ka aad maanta u diri lahayd dhalinyarada Soomaalida ee xaafadda degan walaal aad iyo aad baad mahadsantahay horta waan dhawahay marka ugu horeyso waa runtaada xaafadda in badan baanu deganayn runtiina community waan la shaqeyn jirnay imkana waan la shaqeynaa waxaanu doonaynaa in hore u sii wadno especially dhalinyarada reer Somaliland inaanu soo dhaweyno oo isku yimaadaan oo ay wax wada qabsadaan baanu doonaynaa oo ay hore u socdaan insha Allah barnaamijkan ay soo abaabuleen qoladan North London ku taala community-gan aad iyo aad u fiican yahay hableena qaaliga baa jooga hidiya dhaqanka qoran hidiya dhaqanka oo ummadda Soomaalida qol ay leedahay waxa joogta fanaanadina qaaliga ahayd Caasha Karaama hooyadeedna qaaliga ahayd fanaaniskii fanka Soomaaliyeed awgeedna ahaa gobolnimada Soomaalida ninkii ku hargamay heesaha u qaadi jiray macruufka ahaa intaba waa fan dhalay waa la jooga waxa kale la jooga walaalkeen jeesto oo Axsan Dichi waxa jooga kale Cawaale oo gudoomiyaha community-gan imika soo casumay marka hooyooyinkii iyo carruurtii wada socda iyo abayaashii baa wada socda oo meesha yimi marka runtii aad baan ugu farxay waayo ma jirto hooyooyinka meel gaar ay tagaan oo ama aroosay tagaan abayaasha meel gaar ay tagaan laakiin carruurta meel ma tagto in meel la helo carruurta la keeno oo ay isugu yimaadaan oo isugu bartaan way fiican tahay waxaa halkan la jooga xildhibaanka kamida xildhibaanada Haringey xildhibaan soo dhawow aad baa walaal ku salaamaya ka waran maanta event kan ka dhacay North London maanta waa waqti oo ummadda Soomaalida ay imaan karaan in loo qayb qaadi karo xafladaha dhaqanka ka saabsan iyo taariikhtooda iyo waraayadii iyo ma sha Allah si fiican u dhactay maanta Haringey Council grant yar oo siiyeen inay yara caawiyaan tuska iyo istitaahada oo faharka absolutely maanta dad badan baa isugu yimi halkan oo ku taageera oo xaafadan degan London meelo badan isaga kala yimi Somali community-ga waa maxay message-ka u diraysaa waxaan dirnayaa waa cid kasta codkooda in isticmaala in loo ka qayb galaan doorashooyinka especially doorashooyinka ka saabsan dowladda hoose maadaama all the services ka saabsan guryaasha caafimaad ahaan safety xuquuqta waxa isku imaada waxa loo baahan cid kasta in loo xiriiraan all the local councillors xildhibaanka dowladda hoose especially ahaan maadaama iyagii uga shaqeynayaan absolutely xildhibaan waxaa jira dad badan oo xaafadan ku nool oo iyaguna bilaa guryo ah kuwaas waxa ugu weyn xaafadda haysta maxaad taa ka leedahay waa su'aal weyn iyo waqti dheer oo la baahanahay laakiin ana waxaan ka hadli karaa Haringey Council qabanayaan Haringey Council 3,000 oo guri u dhisayaan ilaa 2031 dadkii oo waiting soo sugayaan waqti dheer guriyaash badanna waa family size homes oo parati ahaan 3 bedroom 4 bedroom quality ahaan fiican yihiin especially korontada ka saabsan so they're very cheap to heat
neat, very cheap to light. Priority dadka oo sugan wait list-ka in la kala backlogas. So anaka waxaan qaban karnaa wax dawladda hoose ka saabsano. Koleyba waxa jira marka new government dawladda sare Labour government oo xisbiga ka mid yahay waxaad maqashiin budgetkii shalay oo maalintii dhawaad oo the new announcement regarding housing. So those are the kind of things that we're campaigning for and fighting for, pushing for. It was a great event. I really enjoyed it. The food was amazing, and yeah, it's a good community. The dancing is amazing. The food was amazing.